آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد هدي إلهي هذا سبحانه وتعالى maanta waxaan meesha ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo xisnu lmuslim min adkaari lkitaab wasunna. kitaabkaas oo ah kitaab aad iyo aad u nafacaad iyo manfac badanba. xisnu oo macnaheedu ay tahay gabaati ama dhufayskii almuslim, qofka muslimka uu geli lahaa, oo min adkaari lkitaabi wasunna, dikriyaalkii iyo xusaskii ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga markaa ku yimid. qofka muslimkaa inta adduunka uu joogo wuxuu khatar ugu jiraa shaydaanka. ileen ma raba wanaag badan inuu qofka muslimka gaaro, dhib ayuu rabaa shaydaanka inuu dadka gaarsiiyo. sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu ugu talagalay dhafays iyo gabaati loogu talagalay qofka muslimkaa inuu uga dhunto shaydaanka. ma aha meel la qoday iyo guri la galo, laakiin waa ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa inuu isku gabaatiyeeyo oo qofku marka uu isku wareejiyo. kitaabku wuxuu ka hadlayaa adkaar aad iyo aad u badan iyo ducooyin, weliba mar allaala marka xaajooyinka iyo dhibaatooyinka ay yimaadaan iyo mararka kaleba. waxyaabaha kitaabka uu tilmaamaya waxaa ka mida marka la hurdayo sidii loo ducaysan lahaa, labiska marka la gashanaayo, dharka marka la xiranaayo, marka musqusha la gelayo, laga soo baxayo, xabka waysaqaadka, iyo marka loo socdo masaajidka, gurigaaga markaad gelaysay, markaad ka soo baxayso. mar allaala marka qofka waxyaaba dhib badan oo culays badan ay u yimaadaan, qofka markuu dambaabo, arrin markay ka cuslaato, daynta markuu gudi waayo, iyo waxyaabo badan oo noocaas oo kale ayuu kitaabka ka hadli doonaa. markaan gudihiisa gaarnaan arki doonnaa kitaabka sida uu hadlaayo. waxaan ka bilaabaynaa muqadamada. bismi illaahi araxmaani araxiim. almuqadima. ina alxamda lilaahi, mahad ilaahay bay u sugnaatay, naxmaduhu wanastaciinuhu, ilaahay waa ku mahadinaynaa, waana kaalmo weydiisanaynaa, wanastakfiruhu, waxaan ka dembi dhaaf weydiisanaynaa dembigii aan galnay, wanacuudu billaahi, ilaahay waxaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusina, nafafyaalkeena sharartoodii, wasayi'aati acmaalina, acmaalaheena kuwooda xunxunkaa. man yahdihi allaahu, qofkuu ilaahay hanuuniya, falaa mudilla lahu, wax dhumin karaa ma laha. waman yudlil, qofkuu ilaahay dhumiyo, falaa haadiya lahu, wax hanuunin karaa uma sugnaanin. wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah, alla xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin ilaa ilaahay maahane, waxdahu, xaala uu keligiis yahay, laa shariika lahu, wax shirkina uusan markaa u sugnayn. wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan, nebi muxamed, cabduhu, addoonkiisa inuu yahay, iyo wa rasuuluhu, rasuulkiisii markaa uu soo dirsaday, sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi, naxariis iyo nabadgelyo korkiisii asxaabtiisaba allah yeeliy, ahelkiisa, iyo waman tabicahu, intii ku raacday biixsaanin wanaagga ilaa yowmi ddiin, ilaa maalinta qiyaama. wasallama tasliiman kaiira, nabadgelin badan ilaahay ha badbaadiya. amaa bacdu, intaa kadib ayuu yidhi imaamka kitaabka qoray, fahaadaa midkaan mukhtasaru, waa mid yar oo la soo gaabiyey. fahaadaa midkaan gacanta aad ku haysatee kutubkaan yar ah, mukhtasar, mid mukhtasar ah waaye. ikhtasartuhu waxaan ka soo gaabiyey buu dhahay imaamka min kitaabi, kitaabkayga lagu magacaabo addikru waadducaa'u, xuska iyo baryaha, iyo walcilaaju, isu daawaynta biruqa min alkitaabi waassunna, iyo wasunnati, sunnada laysku tufo, iyo kitaabka iyo sunnada ka sugnaaday. ikhtasartu waan soo gaabiyey fiihi kitaabka dhexdiisa qisma aladkaari, xusaska qayb ka mida, liyakuuna, si uu u ahaada kitaabka ayaan u gaabiyey khafiifa alxamli, mid xambaaritaankiisa uu khafiif yahay, fi lasfaari, marka safarada iyo socodka markaa lagu jiro, inuusan qofka cuslaynin, uu noqdo mid yaroo gacanta lagu qaadan karo, jaabka la gashan karo, boorsada lagu ridan karo. saasaan markaa ugu talagalay, liyakuuna khafiifa alxamli, xamligiisa mid khafiifa inuu noqdo, fi lasfaari. waqad ikhtasartu waxaan ku soo gaabiyey buu yidhi calaa matni dikri, shigitaanka matnigiisa. waktafaytu waxaan uga gaabsaday oo aan kuga kaaftoomay fii takhriijihi, soo saaridiisa, bidikri masdarin, hal masder xusidiisa, aw masdarayn, ama laba masder, waa meesha xadiidka uu ka soo fulay, oo mimaa wujida fi lasli, midka asliga laga helay ah. waman araada, qofkii doona macrifata asaxaabiyi, saxaabiga aqoonshasadiisa, qofkii raba saxaabiga xadiidka wariyey inuu ogaado, aw ziyaadatan, ama ziyaado raba, fi takhriiji,
takhriijka iyo soo saaridiisa wax siyaada qofkii ka raba facalayhi birujuuci waxaa korkiisa ahaaday inuu u noqdo ila alasli asalkii meesha laga keenay. waas'alu allah ilaahay ayaan su'aalanayaa caza wajal caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye biasmaa'ihi alxusnaa magacyaalkiisa fiican iyo wa sifaatihi alculaa sifooyinkiisa sarsareeyan ku su'aalana an yajcalahu inuu ilaahay ka dhiga khaalisan mid baraxla oo khaalis looga dhiga liwajhihi alkariim wejigiisa kariimkaa wa an yanfacaniya bih inuu igu anfaco kitaabkan fii xayaatii wa bacda mamaatii noloshayda iyo geerideyda ka gadaal wa an yanfaca bih inuu ilaahay ku anfaco kitaabkan man qara'ahu qofkii akhriya aw tabacahu ama daabaca aw kaana amase sabab u noqda fii nashrihi inuu faafo. innahu ilaahay subxaanahu nasahnaaye waliyu dalika arrintaa ayuu weli u yahay waalqaadiru calayhi waa mid kari kara. wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi iyo waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin intaba ilaahay naxariis iyo badbaado ha siiya waaye. fadlu dikri waxaan ka gelaynaa meeshaan dikriga intaana loo tilmaamin xusida ilaahay iyo sida loo xuso marka hore waa inaan ogaano fadliga uu leeyahay haddaan ilaahay xusno subxaana wa tacaala. qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fadkuruunii ixasuusta adkurkum aan idin xasuustee ixuso oo mar walba tasbiixdayda iyo tahliishayda iyo dikrigayga wada anigana waa idin xasuusanaa. qofka in allaala inta uu ilaahay xusaayo ilaahay wuu xusayaa subxaana wa tacaala. washkuruu lii igu shukriya buu dhahay ilaahay walaa takfuruuni hana igu kufrinina. yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow udkuru llaha ilaahay sheega oo xusa oo mar walba afkiina iyo qalbigiina ha ku jira dikran kafiiran xusitaan badan ayuu dhahay ila subxaana wa tacaala. dikriga ilaahay waa cibaadada aan xadidka lahayn ayay ka mid tahay. sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi udkuru llaha dikran kafiira wax badan ilaahay xusa subxaana wa tacaala. haddaad salaada gudataan faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illahi wadkuru llaha kafiira wax badan ilaahay xusa. wاdhaakiriina allaha kafiira wاdhaakiriina allaha kuwa ilaahay xusa kafiiran wax badan oo ragga ah iyo wاdhaakiraati dhaakiraadka wax badan ilaahay xusoo dumarka ah acadda allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga makfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran cadiima ajir cadiima oo weyna ayuu ilaah u diyaariyey. wadkur rabbaka rabbigaa ku xus fii nafsika nafsadaada dhexdeeda tadarucan adigoo u tadarucaya ilaahay wakhiifatan adigoo cabsanaya ama qarsanaya waduuna aljahri jahri sukadeedoo kor ha u qaylin markaad ilaahay xusaysa min alqowli qowlka bilguduwi waalasaali subax iyo galabta ilaahay xus walaa takun min alghaafiliin dadka hilmaansan ee ghaafiliintana ha ka mid noqonin. wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi mathalu aladii kii tusaalihiisa yadkuru rabbahu rabbigiis xusaya iyo waladii midka laa yadkuru rabbahu rabbigii aan xusaynin mathalu alxayi waalmayiti mid dhintay iyo mid nool ayay matal ahaan iskula yihiin. qofka rabbi xusaya waa qof xayi ah oo nool. qofka aan rabbi xusayn waa qof mayid ah haba noolaadee mayd adduunka socdo waaye. wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu kaloo yidhi alaa unabbi'ukum ma idin waramaadadow bikhayri acmaalikum acmaalihiina kuwa u khayr badan wa askaaha ugu tahiran cinda maliikikum boqorkiina agtiina wa arfaciha ugu kor qaadid badan fii darajaatikum darajooyinkiina camalada lagu kor qaado ma idiin sheegaa. wa khayrin lakum idinkagana khayr badan min infaaqi aldahabi waalwaraqi inaad sadaqaysataan ood bixisaan dahab iyo qalin wax idinkaga khayr badan ma idin tusiyaa. oo weliba wakhayri lakum idinkaga khayr badan min an talqaw inaad la kulantaan cadowakum cadowgiina oo fatadribuu aad goysaan acnaaqahum qoorahooda oo wayadribuu ayaguna ay gooyaan acnaaqakum qoorihiina. inaad jihaad gashaan ood gaalada si fiican u baabi'isaan idinkana aad ku shahiidaan oo qooraha ay idinka gooyaan camal idinkaga fiican ma idin tusiyaa. qaaluu waxay dhaheen saxaabadii bala nacam yaa rasuul allah macnaha na tusi inaadan na tusin iska dhaafee na tusi waaye. qaala rasuulku wuxuu yidhi dikru llahi tacaala
ilaahay xuskiisa waaye subxaanahu wa tacaala, inuu qofka ilaahay xuso waayo. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala, ilaahay wuxuu dhahayaa ana anigu cinda danni cabdii bi, addoonkayga melihiisa agtiisaan ahay buu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ana anigu cinda danni male agtiisa ayaan ahay cabdi addoonkayga bi ani uu imalaysto. qofaad arkaysaa wax khayr maba samaysanine waxaan ka mid ahay dadka ahlu naarkan ay ila tahay, saasaan u malayna. maca daalika qof walbaa wuxuu alla agtiisa ka malaystay ayuu leeyahay, wa ana macahu, anigaa micigiisa ahoo la jira idaa dakaranii, markuu ixusaayo. mar walbuu ixuso anaa micigiisaabuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahay micigaaga wuxuu ku noqonaa mar kasta markaad xusaysa, fain dakaranii, hadduu igu xuso fii nafsihi, naftiisa dhexdeeda, dakartuhu fii nafsii, naftaydaan ku xusaabuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. wain dakaranii, hadduu igu dhex xuso fii mala'in, jameeca dhexdooda, koox lagu dhex jiro ayuu igu dhex xusay, dakartuhu, aniguna waxaan ku xusaa fii mala'in, jameeco oo khayrin minhum, ayaga ka khayr badan waa malaa'igtee. wain taqaraba ilaya, hadduu iigu soo dhowaado xaggayga addoonkayga shibran, haltaaka uu ii soo dhowaado, taqarabtu ilayhi diraacan, diraac baan u dhowaadaa buu dhahay ilaahay waa dhudhun. haltaakaad ilaahay u dhowaatay diraac iyo dhudhun buu kuu soo dhowaadaa. waxaa loola jeedaa wax yar oo cibaadaha hadduu sameeyo, wax badan oo naxariisa ayaan anigana ula dhowaadaa. wain taqaraba ilaya diraacan, hadduu diraac ii soo dhowaado waa hal dhudhune, taqarabtu ilayhi baacan, baac ayaan u dhowaadaa, waa gacan kaamil ah. wain ataanii, hadduu ii yimaado yamshi, asagoo soconaya, ataytuhu, waxaan ugu tagaa buu dhahay ilaahay oo aan uga hortagaa harwalat alorod. haddii wax yar oo cibaadaa uu sameeyo, looma dhibaato gelinayo socod badan inuu naxariista alla uu ugu gaaro. anaa ka hortaga buu dhahay ilaahay, naxariistayda ayaan ula hortagaa. wa can cabdillaahi bin busrin radia allahu canhu, cabdillaahi bin busrin ilaahay ha ka raadi noqdee, ana rajula nin baa qaala yidhi, yaa rasuula allahi, rasuulkii ilaahayow, ina sharaa'ica alislaami, islaamka sharaa'icdiisa qad kahurat calaya, korkayga way ku badataye, fa akhbirnii bishayin, shay ii sheeg buu dhahay, atashabbahu bihi, aan ku dhego, shay hal mar aan qabsadoon ka foqin, ii sheeg waxyaabaha sharaa'icda ah ama qaybaha islaamka way ugu badatay. hal qayb oon xoogga saaro oon ku liibaano oo aan ku dhego, rasuulkii allow ii khabar. qaala rasuulku wuxuu yidhi, laa yazaalu, yuusan ka zuulin lisaanuka, carabkaaga, radban, inuu u qoyan yahay min dikri illaahi, ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala. carabkaaga ilaahay xuskiisa ha u qoynaado, mar walba wad dikriga ilaahay. dikriga ilaahay carabkaaga yuusan ka joogsanin. qoynaanshaha waxaa loola jeedaa mar walba ha ku jiro, ilaan haddii laga waayo asagoo ka qalalay ayay la mid tahay. wa qaala sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi, man qara'a, qofkii akhriya xarfan, hal xaraf oo min kitaabi illaahi, ilaahay kitaabkiisa ku dhex sugan, falahu bihi, wuxuu ku leeyahay halkaa xaraf xasanatun, xasano iyo wanaag ayaa laga siinaa. waalxasanatu bicashri amhaaliha, halkii xasano 10 ayaa loo laalaabaa, oo 10 miisaalkeeda ayuu ku leeyahay buu dhahay nebiga axadka qur'aanka akhriya. laa aquulu dhihi maaya alif laam miim ayaa xarfun xaraf ah, alif laam miim xaraf waayo madhahayi buu dhahay nebiga, walaakin alifu xarfun, aliftu waa xarf, wallaamu xarfun, laamtu waa xarf, wa miimu xarfun, miimkuna waa xarf buu dhahay nebiga. alif laam miim haddaan isku daraa xaraf loo xisaabaa dhihi maayo. alif laam miim hadduu dhao, alifta gooniya loogu xisaabaa waa 10 xasanaad, laamta gooniya loogu xisaabaa waa 10 kale, miimka gooniya loogu xisaabaa waa 10 saddexaad. alif laam miim 30 xasanaad ayuu ku leeyahay. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال wuxuu yihi عقبة, kharaja rasuul الlahi, rasuulki ilaahay ayaa soo baxay salى الlahu عalayhi wasalam, wanaxnu anagoo fi sufati, sufadii markaa ku sugan qowladii ayaan ku dhex jirnay. asxaabu sufa ayuu ka mid yahay. sufada waa qowlo yar oo masaajidka agtiisa ku taaloo bucafada iyo masaakiinta tabarta la jiifa jirtay. faqaala wuxuu nagu yidhi, ayukum yuxibu, yaa jecel an yaqduwa, inuu dheento kulla yawmin, maalin kasta, ilaa budxaan, budxaan meesha la dhaho inuu aado, aw ila alcaqiiq,
ama caqiiq meesha la dhaho oo faya'tiya minhu uu kala yimaado meesha binaaqatayni laba halaad ama laba geel oo koomaawayni kursyo waaweyn leh fii gayri idmin walaa qatiicati raximi ayadoo dembi la'aan iyo raxim goysma aan ku jirin yaa jecel inuu subax walba intuu dheento budxaan uu taga ama caqiiq meesha la dhaho oo laba naaqadood waa laba hale oo kursyo waaweyn leh uu ka keensto asagoo dembi loo qoraynin faqulnaa waxaan dhahnay yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow nuxibu daalika arrintaa waa jecelnahay qof kastoo annaga nagamida waa jecel yahay inuu meesha aado oo laba halood uu la yimaado uu soo qaato qaala rasuulku wuxuu yidhi afalaa yaqduu mau dheenta axadukum axadkiin ila almasjidi masaajidka mau u dheento oo fayaclama uu soo bartuu ow yaqra'a u soo aqriya aayatayni laba aayadood oo min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa ku sugan caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye khayrun lahu way oga khayr badan tahay min naaqatayn laba halaad laba halood way oga qayr badan tahay wahalaaثun saddex aayadna khayrun lahu min halaaثin saddex halaad ayay oga qayr badan tahay wa arbacun khayrun lahu min arbacin iyo wa min acdaadihina min alibili intii tira ahuu akhriyey oo geela ah way oga qayr badan tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu kaloo yidhi man qacada qofkii fadhiista maqcadan meel la fadhiista lam yadkur illaaha uusan ilaahay ku xusin fiihi maqcadkaa dhexdiisa waa golahuu fadhiistaye kaanat calayhi min allaahi tiratun ilaahay waxay u ahaanaysaa xaggiisa ninkaa korkiisa ay uga ahaanaysaa tira waa nadaama iyo qowmama iyo shalaay waman iltajaca qofkii jiifta maltajacan makaanu jiif lam yadkur illaaha fiihi ilaahay uusan ku xusin kaanat calayhi korkiisa waxay min allaahi uga noqonaysaa tiratun nadaama iyo xasra iyo shalaay ayay markaa ku tahay waaye meelo badan oo gola ayaan fadhiisanaa maanta buuq iyo hadal aan lagu badiyaa ilaahay ma lagu xuso maalinta qiyaama way imaanaysaa maca daalika tiray kugu noqonaysaa iyo nadaamo xasra iyo shalaay wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa jalasa qowmun qowma fadhiistaan majlisan majlis iyo gole oo lam yadkuru llaha fiihi aysan ilaahay ku xusin meel walbood fadhiisata hal marba ha ahaatee subxaana allaahi ku dheh sariirta markaad jiifata hal mar xataa ha ahaatee bismi illaahi dheh waa inaad hadalka iyo waxyaabaha kale aad ku soo dhex dartaa dikriga ilaahay haddayse meel fadhiistaan qoom ilaahay aysan ku xusin walam yusalluu calaa nabiyihim nebigoodana aysan ku sallinin ilaa kaana calayhim tiratun ilaahay waxay u noqonaysaa korkooda nadaamo fain sha'a cadabahum hadduu doono waa u cadaabayaa ilaahay wain sha'a gafara lahum hadduu rabana waa isaga saamaxa subxaanahu wa tacaala wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min qowmin qowm ma jiro yaquumuuna istaagaya min majlisin meel ay fadhiyeen laa yadkuruuna allaha fiihi aysan ilaahay ku dhex xusin meesha gudaheeda say u fadhiyeen ay u buuqayeen oo dagaal iyo qabiilka sheekaysi iyo saasay xaaladu tahay ay ku jireen ay kala istaageen ilaa qaamuu can mili ilaa way istaagayaan meeshii oo ah can mili jiifati ximaarin dameer bakhtigiisa oo kale meeshii oo ah ayay ka istaagayaan wa kaana lahum waxayna u ahaanaysaa xasratan nadaamo shalaay markaa u noqonaysaa intaa waa horudhac dikriga ilaahay iyo in rabbi la xusana la tusaaleeyey waxaan ka gelaynaa amaakinta iyo boosaska ilaahay lagu xuso subxaanahu wa tacaala midda ugu horaysa waa adkaaru istayqaadi min annawmi dikriga lagu xuso ilaahay qofka markuu hurdada ka soo kaco maad u jiiftay caawo o dhan ayaad soo kacday subaxdii maxaad dhahaysaa waxaad dhahdaa alxamdu lilaahi aladii axyaanaa bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nnushuuru alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allihii axyaanaa na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markaan dhimanay ka gadaal wa ilayhi nnushuuru kulanka iyo aruurkana xaggiisa ayuu markaa ahaaday qofku marka uu hurdo waa xayaatabax yar oo ku meelgaar ah allaahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha waalatii lam tamut fii manaamiha ilaahay nafta ayuu qaataa taan dhiman hurdadaa lagu oofsadaa fa yumsiku alatii qadaa calayha almowt ilaahay naftuu ka celiyaa intii meed lagu xukmaya wayursilu alukhraa ilaa ajalin musamaa nafta kale waa la soo diraa ilaa wakhtigeeda laga gaaro meyd ayaad ahayd waxaad kala ogeed malaha ilaahayaa xayaatada kugu soo celiye mar allaala marka aad soo kacda hurdada qaylo iyo buuq iyo dagaal ha bilaabin muusig dhegaysashadiisa ha ku bilaabina dheh
alxamdu lilah ilaahayaa mahad iskale aladii axyaana na soo nooleeyey bacdamaa amaatanaa markaan dhimanay ka gadaal wa ilayhi nushuuru xaggiisaa loo noqonayaa. waxaad kaloo dhahaysaa laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, ilaahay xaqnimo lagu caabudoon allaha waaxidka ahayn ma jira waxdahu xaalo uu keligiis yahay laa shariika lahu, shirki uma sugnaanin, lahu lmulku mulki ilaahay buu u sugnaaday, walahu alxamdu mahadna asagaa iskale, wahuwa calaa kulli shayin qadiir wax walba alla kari kara waaye. waxaad ku dartaa intaas subxaana allah, ilaahay ayaa nasahan oo ceeb iyo nusqaan aan lahayn. walxamdu lilaahi ilaahay ayaa mahad iskale iyo faalo iyo ammaan. dadkoo dhan hadday mahdiyaanna waa mahadsan yahay, haddaysan mahdininna ilaahay waa mahadsan yahay labada marba subxaana wa tacaala. walaa ilaaha ila allahu ilaahay asaga aan ahayn ma jira, wallaahu akbar ilaahay ayaa weyn. walaa xawla walaa quwata ila billah, walaa xawla xeelad iyo tab iyo caqli aan xumaanta uga leexda melihi, walaa quwata awood aan diinta ku raaca melihi ila billah, inuu ilaahay igu saacido maahana allihii alcaliyi alcadiimi sareeyey oo weynaa ee rabbi kfir lii ilaahayow ii dembi dhaaf. sidaana waad dhahaysaa markaad hurdada ka soo kacda. waxaad kaloo dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii, ilaahay ayaa mahad iskale jasadkayga ii caafiyey, waradda calaya ruuxii ruuxdayda korkayga ku soo celiyey, waadina lii bidikrihi dikrigiisana ii fasaxayo markaa ii idmay inaan asaga markaa xuso. ilaahay yaa mahad iskale aladii caafaanii fii jasadii, jasadkayga caafimaad ii siiyey, waradda calaya ruuxii ruuxdayda ii soo celiyey. waayo dad badan ayaan jasadkooda caafimaad qabin, musqulaha aan aadi karin oo la qaada, aan soo fadhiisan karin oo la fadhiisiya, aan wax cuni karin oo lagu qabaa. maca dalika waxaad dhahaysaa alxamdu lilaahi aladii caafaanii fii jasadii waradda calaya ruuxii waadina lii bidikrihi dikrigiisana markaa ii fasaxay. 10 aayadood ee ugu dambaysa suurata aali cimraanna waad akhrinaysaa. ina fii khalqi asamaawaati waalardi, ileen aayadahan ilaahay markii nebiga lagu soo dejiyey bilaal ayaa u yimid, habeennimaa lagu soo dejiyey nebiga. sidaa darteed bilaal ayaa u yimid oo ogeysiinayey salaada aadaankeeda. nebigoo ooynaya ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam. bilaal wuxuu dhahay maa yabkiika yaa rasuul allah, maxaa kaa ooyayey? bilaal wuxuu dhahay aayado ayaa laygu soo dejiyey caawa, maca daalika iikoo kale aan arkin. waylun halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriya oon ku tadabburin, halaag wuxuu u sugnaaday qofkii akhriya oon ku tadabburin. waa ku soo celceliyey nebiga. aayadahaana waa ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar, ilaa suuradda ay markaa ka dhammaato. ina fii khalqi asamaawaati, samaawaadka abuurkooda iyo waalardi arlada abuurkeeda, iyo waاkhtilaafi alleyl isbedelka habeenka iyo waannahaari midda maalinta, la aayaatin aayaad iyo cibrooyin ayaa ugu jira liuli lalbaab, dadka cuquusha u saaxiibka ah, dadka caqliga leh ayaa habeenkii maalinta isbedelkiisa, samaawaadka tiirla'aanta la taagay, arlada la goglay oo la fidiyey ugu sugan, iyo isbedelka habeenka iyo maalinta ulil albaab. yaa la yidhaahdaa ulil albaab? dadka caqliga u saaxiibka yeeyihiin dadka kala siyaaseeya miya? maya. dadka ganacsiga iyo beyc mushtarka si fiican u bartay miya? haddaana loo tilmaamaa aladiina yadkuruuna allah, waa kuwa ilaahay xusaya qiyaaman ayagoo taagan, wa qucuudan ayagoo fadhiya, wa calaa junuubihim iyo ayagoo junuubkoodii dhinac u jiifa. intaba ilaahay ayay ku xusaan subxaana wa tacaala. maxaa u sii dheer, wayatafakkaruuna waxay ka fakeraan fii khalqi asamaawaati waalardi, samaawaadkii arlada qaab abuurkooda ayagoo dhahaya rabbanaa rabbigeenniyow maa khalaqta haadaa baatilan, kan baatil iyo cayaar iyo dheeldheel uma abuurin, subxaanaka adigaa hufan oo nusqaan aan lahayn, walad iyo saaxiibana aan samaysanine, faqinaa naga kori cadaaba naari, naarta cadaabkeeda ilaahayow naga kori. dadka dhahaya waayo ulul albaabka. ilaahay ayay xusaan ayagoo taagan, ayagoo fadhiya, ayagoo jiifa. waa 3 xaalad oo insaanka uu ku sugan yahay. mar waa fadhidaa, mar waa taagantaha, marna waa jiiftaa. wax ka dhaxeeya malaha. qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim ayay ilaahay ku xuseen. samaawaadkii arlada abuurkooday ka fakarayaan, wayatafakkaruuna waxay ku fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalardi, samaawaadkan saan u waaweyn oo xoogga leh, tiirla'aanka la taagay, alle ka xoog badan inuu jiro abuuray og yihiin, iyo arlada sidaa ah. rabbanaa maa khalaqta haadaa baatilan,
ilaahayow kan baatil iyo dheeldheel iyo ha iska ahaada uma samaynin, in la fiirfiirsado uma abuurin, ee in lagu caqli qaataad u abuurtay. subxaanaka ilaahayow adaa ceeb iyo nusqaan ka dheera. faqinaa cadaaba annaari, naga kori naarta cadaabkeeda. rabbanaa rabbigeeniyow innaka adiga man tudkhili nnaara, qofkii naarta aad gelisa faqad akhsaytahu, waad hoojisay. qofkiiba naar gala oo naarta aad ilaahayow ugu tala gasho, kaa waa u dhammaatay. wamaa lildaalimiina, dhaalimiintana uma sugnaanin min ansaarin wax u gargaara. dhaalimiinta wax kaalmeeya oo nasri siiya oo ilaa mataqaana alla xaggiisa uga daalmeeya, intaasoo dhan markaa malaha. maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac, mid xamiima ma laha iyo shafeeca la aqbala. rabbanaa innaka man tudkhili nnaara, ilaahayow qofkaad naarta gelisa faqad akhsaytahu, waad hoojisay. wamaa lildaalimiina min ansaarin, dhaalimiinta wax u gargaaraa markaa uma sugnaanin. rabbanaa rabbigeeniyow innanaa anagu samicnaa, waxaan maqalnay munaadiyan mid munaadi ah, mid qaylinaaya, mid naadinaaya oo dhawaaqayo, yunaadii liliimaani, iimaanka dadka ugu naadinaaya, hadalkiisana uu yahay an aaminuu birabbikum, rabbigiin rumeeya. fa aamanaa, waaba rumaynayba. isla markii aan maqlnay ma dhihin rumayn maxaa la dhahaa, rabbi maxaa la dhahaa. isla markiiba fa aamanaa, waa rumaynay. rabbanaa rabbiyow faqfir lanaa, noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeena, wakafir ilaahayow astur oo qari oo naga tirtir cannaa xaggeena sayi'aatina, gafafkeennii qaladaadkeena. watawaffanaa, na oobso oo na dil maca alabraari, annagoo baariyaalka micigooda ku jira. ilaahayow nafta naga qaad. watawaffanaa maca alabraar, baariyaalka micigooda anagoo ah ilaahayow, waana dil oo dadka ashraartee sharta badan anagoo ku dhex jirna. ilaahayow nafta ha naga qaadin. rabbanaa inanaa samicnaa, waan maqalnay munaadiyan dhawaaqe oo yunaadii ku dhawaaqaya liliimaani oo dhahaya an aaminuu birabbikum, wa rabbigiin rumeeya. fa aamanaa, waa rumaynay. rabbanaa faqfir lanaa, rabbigeenow noo dhaaf dunuubanaa dembiyaalkeena, wakafir ilaahayow astur cannaa xaggeena sayi'aatina, qaladaadkeenii gafafka naga dhaca. watawaffanaa maca alabraari, baariyaasha bicigooda anagoo dhex ah ilaahayow na oobso. dadka fujaartii qamri cabliyaalka ah, diinta alla ka durqee qayilaaya, shirkiga iyo macaasida iyo xumaanta ku dhex jira anagoo ku dhex jirna. ilaahayow hana oobsan, hanana dilin, waa khaatima xume. ilaahayow baariyaalka adig ku xusa oo diinka raaca, khayrka iyo wanaagga ku dadaalay, salaada dukanaya, khayrka ku dhex socda, micigooda anagoo ah markaa nagu dil, waa xusnulkhaatime. rabbanaa rabbigeeno waaatinaa nasiimaa wacadtanaa, waxaad noo yabohdood noo ballanqaaday calaa rusulika, ay calaa lisaani rusulika waaye, rusushaada carabkooda waxaad noogu ballanqaaday. ilaahayow nasii oo jannada ah. walaa tukhsinaa, ilaahayow hana hoojinin yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamo, waayo innaka adiga laa tukhlifu almiicaad, miicaadka mid guub yeelaa ma tihid, ballanada mid ka baxaa ma tihid. rabbiyow nasii ballanqaadkaad noo ballanqaaday. rususha carabkooda waxaad noogu ballanqaaday, ileen adi intaad noo timid nooma sheegin, rasuul ayaad noo soo dirtay. waa aaminay, waa rumaynay. ballanqaadkii rususha carabkooda aad noogu ballanqaaday nasii, hanana dulaynin yowma alqiyaama, innaka laa tukhlifu almiicaad. faاstajaaba, wuu ka ajiibay lahum ayaga rabbuhum rabbigood oo wuxuu yidhi annii anigu laa udiicu ma dayacaya camala caamilin shaqaale shaqadiisa oo minkum idinka idinka mid ah. caamil camal uu qabtay ma dayacayo idinka mid ah, min dakarin aw unhaa, lab ahaaye ama dhadig. dakar waa wiil, aw unhaa waa naag. bacdukum gobolkiin min bacdin, gobolka kale ayuu. laakin aladiina ittaqow, laakiinse aladiina kuwii ittaqow cabsaday rabbahum, rabbigood ka cabsaday, lahum jannaatun jannooyin ayay leeyihiin oo tajri ay dareeraysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru, webiyaala khaalidiina fiiha, waa ku dhex waaraayaan gudaheeda. nusulan, waa nusul iyo soo dhowayn iyo martiqaad oo min cindi illaah, ilaahay agtiisa ka ahaatay. wamaa cinda allaahi, wixii ilaahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun lilabraari, baariyaalka markaa u khayr badan. dadka baariyaalka la yidhaahdee rabbigood caabuday, kuwa waxa ilaahay agtiisa yaala uga khayr badan waxay adduunka ka helayaan. wa ina min ahli lkitaabi, kitaabka ehelkiisa laman baa ka mida yu'minu billaahi, ilaahay aaminsan. wamaa unzila ilaykum,
wixii xaggiina loo soo dejiyey rumaysan iyo wamaa unzila ilayhim wixii xaggooda loo soo dejiyeyba. kitaabka ehelkiisa waxaa ka mida ku aaminsan wixii idinka laydiin soo dejiyo qur'aanka ah. wamaa unzila ilayhim wixii xaggooda loo soo dejiyey oo kitaabkii injiil ah, khaashiciina lilaahi ayagoo khushuucsan oo ilaahay u khushuucsan, laa yashtaruuna aan gadanaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa tamanan qaliila lacag yar aan ku iibsanaynin. ulaa'ika kuwaasi lahum waxa ay leeyihiin ajruhum ajirkooda ayay cinda rabbihim rabbigood agtiisa ku leeyihiin. ina allaha sariicu lxisaabi ilaahay alla xisaabtankiisu ay soo degdegaysa waayo subxaana wa tacaala. ilaahay waa sariicu lxisaab oo alla xisaabtankiisa uu soo degdegaya waayo. aayaddu waxa ay ku soo degtay ninka lagu magacaabaa najaashi oo boqorkii xabashada ahaa ayay markaa ku soo degtay. waayo mar allaala markii muslimiinta ay ka baxeen oo lagu dhibay magaalada maka, rasuulku wuxuu yidhi aada dhulka etoobiya boqor ayaa jooga agtiisa aan dadka lagu dulmin. meesha markay tageen jacfar ibni abi aalib iyo cuثmaan ibni cafaan, abu salama, umu salama, umu xabiiba iyo dadka lamidkaa markay meesha tageen ayaa qoraysh waxay ogaadeen inay muslimiinta amni istiqraar ku sugan yihiin. 2 nin ayay soo wadeen ayaa la yidhi ay direen oo xoog badan waxay u dhiibeen hadiyo badan. najaashi u geeyay dhaheen hadiyada siiya, dadkaana ka soo wada. najaashiyay u tageen, arrintii bay la socodsiiyeen, hadiyadii ayay meesha u dhigeen. mayuu dhahay ilaa aan afkooda ogaada waa loo wacay. jacfar ayaa u hadlay, hadal fiican ayuu ku hadlay, qur'aan ayaa loo akhriyey. najaashi ka gadaal waa khushuucay waana ooyey. mar allaala markuu ooyey ayuu dhahay baxa idinkana iga taga, qofaan idinku siinaya malaha, hadiyadiinana qaatuu dhahay baxa ma idinka rabo. idinkana muslimiinay beledkayga ku noolaada, qofkii idin cayagaraanbaa laga qaada, qof allaala qofkii idin dhibana saas oo kale. maca daalika ninka ayay ku soo degtay aayadda waina min ahli lkitaab. ila najaashi ahlu kitaab ayuu ahaa, laman baa ka mid ah yu'minu billaahi ilaahay rumaysan. waa najaashi wamaa unzila ilaykum wixii idinka laydiin soo dejiyey qur'aanka ayuu rumeeyey. wamaa unzila ilayhim wixii xaggooda loo soo dejiyey waa kitaabkii nebi ciise, khaashiciina lilah ayagoo ilaahay u khushuucsan oo laa yashtaruuna aan gadanayn biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa tamanan qaliilan. hadiyadii waa ku soo celiyey. ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayay ajirkoodu ku leeyihiin. najaashi wixii la mid ah. ina allaha sariicu lxisaabi maalintuu dhintayna rasuulka magaalada madiina ayuu ugu tugtay salaadii janaasada. istaaga ayuu dhahay boqor qiimo badan ayaa dhintay. 4 takbiirood ayuu u takbiirsaday sala allahu calayhi wasalam. yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaa rumeeyayow isbiruu sabra oo ka sabra macaasida, oo ku sabra diinta, oo ku sabra dhibaatada adduunka. wasaabiruu la sabirta magaalada. waraabituu ama wasaabiruu ka sabar badiya idinkaa mu'miniin ah. waraabituu ku xirxirnaada diinta iyo goobaha jihaadka iyo masaajidada. wattaquu llah ilaahayna ka cabsada lacallakum tuflixuuna inaad liibaantaan ayaa la arkaa. ducaau lubsi tawbi marada marka la labisanayo ducadii la akrin lahaa. toobka waa dharka. alxamdu lilaahi deh ilaahay baa mahad iskale. alladii allihii kasaanii igu marasheeyey haada tawb maradan ee tan ah. warazaqanii igu arsuqay min gayri xawlin minii walaa quwa awood iyo xeelo la'aan xaggayga ah. awood aan ku keensan lahaa ma jirto, xeelad aan ku xihan lahaa malaha. haddii caqliga lagaa qaada miirkaaga uu jirin marada ma xihan kartid. sidaas darteed ilaahay baa mahad iskale. alxamdu lilaahi aladii ilaahay yaa mahad iskale kasaanii haada tawba maradan igu marasheeye. warazaqanii iguna arsuqay min gayri xawlin minii walaa quwa oo xeelad iyo awood xaggayga ka ahaatay iyadoo markaa ahayd. ducaau midanna waa duca oo lubsi tawbi ljadiidi. taasi waa toobka caadiga, laakiin ducadan mara cusub markaad soo galato waxaad dhihi lahayd waaye allaahuma laka alxamdu. maradii cusbeed ayaad bacda ka fiiqday, waad guntatay, waxaad dhahdaa allaahuma laka alxamdu ilaahayow mahad iyo amaan adaa iska leh. anta kasawtaniihi adaa i marasheeyey. hadhihin anaa soo gatay, lacagtaydiyaan ku soo gatay, anay xaaladeedu sidaa tahay. ilaan ilaahayaa kugu marasheeyey subxaana wa tacaala.
as'aluka waxaan ku su'aalanaa min khayrihi maradan khayrkiisii wa khayra maa sunica lahu khayrkii loo sameeyey wa acuudu bika waxaan kaa magan galaa min sharihi shartiisa iyo wa shari maa sunica lahu shartii lagu sanceeyey ayaan kaa magan galaa ilan khayrna wuu noqdaa sharna waa noqdaa khayrka ilaahay weydiisa shartana ilaahay uga magan galo khayrkiisaan ku weydiisanaa maradan khayrkeeda inaan salaada ku tukado inaan ku caabudo inaan kugu caabudo adiga inaan khayrka ku sameeyo inaan diinta alla kula xoogaysto waxaan kaa magan galaa sharteeda in dhib iyo waxyaabo ay ii soo jiida in laygu halaago oo macaasi aan u isticmaalo meelaha fisiga markaan aadayo inaan guntado intaasoo dhan ayaan kaa magan galay dheh ilaan dharka laftigooda way kala nasiib badan yihiin dadaa dhar intay soo gataan diinta alla u adeegsada oo ciidda ku tukada oo taraawiixda ku tukada oo leylka ku tukada kuwa kalena intay dhar iyo surwaalo soo gataanay fisqi iyo zina iyo xumaan u aadaan ayna u adeegsadaan xaaladda noocaasa waaye marka qofku waa inuu khayrkana ilaahay weydiistaa sharteedana ilaahay ka magan galaa adducaau liman labisa qawban jadiidan waa duco qofkii mara cusub xirta wixii loogu ducayn lahaa tii hore adaa ducaystay maanta qof ayaad ku aragtay dar fiican asagoo wata maxaa samaynaysaa tubliidhe wayukhlifu allahu tacaala baabi'i maradan baabi'i waxaa loola jeedaa hortaada ha dhammaato ilaan marada markay hortaada dhammaato waa cumri dheera lagugu duceeyey wayukhlifu allahu tacaala ilaahayna bedelkeeda fiican ha ku siiyo waxaa kaloo dhahdaa ilbis jadiidan ayadoo cusub labiso wa cish xamiidan adigoo sharaf leh noolow wamut shahiidan shahiidnimana ku dhimo qabiil iyo waxyaabo kaleba waa loo dhintaa sidaa darteed diinta ilaahay adoo difaacaya ku dhimo waaye ilbis jadiidan wa cish xamiidan wamut shahiidan waa qofkii dhar fiican aad ku aragto maa yaquulu wuxuu qofku dhihi lahaa idaa wadaca thawbahu markuu maradiisa dhigo dharkaad iska dhigaysaa maxaad dhahaysaa qof maradama wax la qaato ah iyo waa laygu soo tiray hadhihin bismi illaahi dhe keliya ilaahay magaciisaad ku siibaysaa ducaau dukhuuli lkhalaa'i musqusha marka la gelaya ducadii lagu ducaysan lahaa anagoo heesaynaan galnaa maanta musqulaha markaasaa maalin walba waxaad arkaysaa jiniya ku dhacee qur'aan alla saaro waa laga soo dhex qayliyey ilmo jiniya ku istaagtay ilmo jiniya ku istaagay maca daalika ducada iska aqri marka hore bismi illaahi dheh ilaahay magaciisaan ku gelayaa allaahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan galay min alkhubuthi waalkhabaa'ifi shaydaanka kiisa lab ii kandhadiga ah khubuf iyo khabaa'if khubuf waa shaydaanka midkiisa xunu ee ragga ah waaye khabaa'if waa kandhadiga ah ama dumarkaa sidaa darteed shaydaanka ilaahay ka magan gal musqulaha qashinqubiyada meelaha godadka waa amaakinta loogu rajo badan yahay inay shayaadiintu joogaan sidaa darteed ha ku sheekaysanin musqusha dhexdeeda ha ku dhex hadlin wax kale ha ku tilmaamin markaad gelaysa bismi illaahi dheh isimka ilaahay qabsa ileen ilaahay magaciisa baraka iyo karaamuu leeyahay waxaad kaloo dhahdaa allaahuma inii acuudu bika ilaahayo waxaan adigu kaa magan galay ileen qof kaloo laga magangeli karaa ma jiree min alkhubuthi waalkhabaa'ifi shaydaanka kiisa labkaa iyo kandhadigaa labadaba ilaahayo adaan kaa magan galay musqusha saasaa loo galaa si looga badbaado dhibaatooyin fara badan shaydaanka ilmihiisa yaryarkaa dhici karta inay meesha fafadhiyaan haddaad ku istaagto lagaa soo raaca waa nin maca daalika dhibaato fara badan ayay leedahay meeqa qofaa laga asiibay musqulaha oo ilaa hadda daawo loo la'yahay maca daalika waa inay marka hore sameeyaan waxa lagu magacaabo wiqaaya waayo alwiqaaya khayru min alcilaaj ka hortagga daawada way ka fiican tahay cudurka intuusan kugu dhicin ayaa fiican inaad ka hortagto ducaau alkhuruuji min alkhalaa musqulaha oo laga soo baxo ama marka laga soo baxo wixii markaa lagu ducaysan lahaa dukhuululkhalaa marka waa marka aad geli rabto ilaan markaad gasho gudaheeda ilaahay laguma xiso wax walboo magac ilaahay ku qoreen bannaankaad dhigaysaa silsilada allah ay ku qoranta hadday ku labisan tahay dhig bannaanka faraatiga hadduu ku qoran yahay magac ilaahay bannaanka dhig kitub haddaad wadato bannaanka dhig shay walba oo khayr ah la gelin musqusha waxna laguma aqriyo markaad ka soo baxda maxaad dhahaysaa gufraanaka ilaahayow dembi dhaafkaaga in badan ayaan musqusha ku jiray maca daalika rabbow in lagu xusay ahayd saacad walba inaan ku xusnaadna amartay kuma xusina ii dembi dhaaf macnaha waa sidaa gufraanaka amase ilaahayow dembi dhaafkaaga ilaan dhibaato fara badan ayaa i haysay musqusha ayaan galay inay waxaan wasaqdan iga soo baxaan adiga ayaa ilaahayow sabab u ahaa adiga ayaa xaaladaa keentay maca daalika sidii la rabay makuu caabudi karnee ilaahayow markaa noo dembi dhaaf
ilaan qofka mar allaala marka uu musqulaha galo arrin cajiib badan waaye sida ilaah tilmaamay wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna nafafyaalkiina calaamad baa ku jirta biyaha iyo cuntada hal maxal bay ka galaan laba maxal buu alla kasoo kala bixiya subxaana wa tacaala ma awoodi kara xaaladaa takhaatiirta iyo kuwa jaamacadda ka soo baxay ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala sidaa kale waxaa la yidhaahdaa alxamdu lilahi aladii adhaba cani aladaa allihii dhibka iga bixiyey ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala ilaan dhibaato fara badan iyo cunduray kugu noqon lahayd addikru qabla alwuduu'i inta aan la weys qaadanin ka hor sidii ilaahay lagu xusi lahaa maxaad dhahaysaa markaad rabta inaad weys qaadato ama weysqaadka aad rabta inaad bilowdo bismi illaahi keliya dheh wax kale oo la akhriyaa ma jiro sidaa darteed waa la niyeysanaa bismi illaahi waad dhahaysaa haddaad bisinka ilowda weysqaadkaaga waa kuu jiraa wax dhibaataa markaa ma laha addikru bacda alfaraaqi min alwuduu'i marka weysqaadka la faaruqo oo la dhameeyo sidii ilaahay lagu xusi lahaa subxaana wa tacaala weysqaadkaad dhamaysay maxaad samaynaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluhu dheh ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaahay xaqnimo lagu caabudo ilaahay aan ahayn inuusan jirin waxdahu xaalo uu keligiis yahay laa shariika lahu shirkina uma sugnaanin wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxamed cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu markaa yahay intaa waxaad raacsiinaysaa allaahuma jcalnii ilaahow iga yeel min altawaabiina kuwa tawbakeen ka badan mar walboo qalab ka dhaca istikfaar weydiista wajcalnii igana yeel min almutatahhiriina kuwa isdahira kuwa isnadiifiya ilaahayow igala mid dhig kuwa tawaabiintana igala mid dhig labadaba ilaahay waa jecel yahay ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin dadka isdahira ilaahay waa jecel yahay dadka weyse qaata waa jecel yahay weysqaadkaan ka tagnay salaad yaanba la tukanina maxaa la weysqaataa maanta marka la tukanayo la weysqaad imaana sidaa darteed dadka mutatahhiriinta ah oo isdaahiraaya dembiga iska daahiraaya xumaanta iska daahiraaya zinada iska daahiraaya waxuu alla diiday oo dhan iska nadiifinaya jasadka iska daahiraaya dharka dahiranaya ilaahay waa jecel yahay min altawaabiina wajcalnii min almutatahhiriin inaa laga yaabaa inaad dhahdo adigoo iska socda soobax masaajidka waa la adimaya surwaalkayga daahir ma uu ku leeyahay sarwaalkayga daahir ma aha asoo ula jeeda asoo masaajidka diidaay waa run daahir ma aha inama almushrikuuna najasun ninka salaada ka taga waa mushrik mushrikiintana waa najaaso dhahay ilaa subxaana wa tacaala min altawaabiina wajcalnii min almutatahhiriina subxaanaka intaa waxaad ku daraysaa subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka subxaanaka ilaahayow adigaa nasahan allaahuma ya allah ilaahayo wabixamdika ma hadda aday kuu sugnaatay ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta ilaah inuusan jirin aan adiga ahayn astakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka xaggaagana waan u soo noqonayaa addikru xuskii cinda alkhuruuji min almasjidi marka guriga laga baxayo wixii alla lagu xusi lahaa iyadoo la guryamaayo la qaylinaayo la dagaalamayo ninkiin agta iscaynayana guriga laga baxaa maanta laakiin sidii la dhihi lahaa buu noo tilmaamaa nebiga bismi illaahi dheh tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku baxayaa tawakaltu cala allahi ilaahay ayaan talada u dhiibanaa walaa xawla caqli melihi bannaankaan u socdaa shayaadiinaa taagan ciyaal suuqaa taagan dhib dadraa taagan dad shar socdaa taagan dad jidka fadhiyo gabdhaha kulmiyaa taagan ilaahayow caqli melihi aan isaga celiyo walaa quwata awoodda melihi ilaa billaahi ilaahay maahane waxaad kaloo leedahay allaahuma innii acuudu bika ilaahow adiga ayaan kaa magan galay an adilla inaan dhumo ow udalla ama lay dhumiyo aw azilla inaan simbirraxdo ow uzalla ama lay simbirraxiyo aw adlima inaan wax dulmiyo ow udlam ama lay dulmiyo ow ajhala inaan jahli falo ow yujhala calaya ama in dushayda lagu jahli falo intaana adaan kaa magan galay waa marka guriga laga baxaayo gurigaaga waad ku doorsan tahay bannaanka markaad baxda dhib iyo dheefta waa la kulmaysaa ilaahay talada u dhiibo subxaana wa tacaala dhammaan iska xawil adiga talada wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin haddaadad mu'miniina tihiin talada ilaahay u dhiibta buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala bismi illaahi
ilaahay magaciisaan ku baxaa dheh tawakaltu cala allahi ilaahay ayaan talada saarana subxaana wa tacaala tawakaltu waxaan tala saartay cala allahi waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh qofkii ilaahay talada u dhiibtay ilaahay waa ku filan yahay subxaana wa tacaala walaa xawla walaa quwata ila billahi allahuma inii acuudu bika an adila aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya in laygu jahli falo inaan simbirraxdo oon dembi ku dhaco oo xumaan sameeyo oon wax xado oon wax dhaco oon dad dulmiyo oo dhiigooda daadiyo intaasoo dhan adaan kaa magan galay qoriga hore usoo qaadanaa maanta markuu soo baxay waa kusoo talagelaa inuu wax dhaco iyo inuu wax dilo iyo inuu dhiig islaameed daadiyo shay caalada mamnuuca waaye addikru cinda dukhuuli lmanzili guriga marka la gelaya agteeda wixii la dhihi lahaa waxaana la baray markaan ka soo baxno waan noqonaynaa haddana gurigii ayaan ku noqonay maxaan dhahaynaa qayla iyo muryana lagu garaa haddana iyo waxyaabo aan loo baahnayn bismi illaahi walajnaa dheh wa bismi illaahi kharajna wa cala allahi rabbina tawakalna uma layusallim cala ahlihi bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku gelayaa gurigayga bismi illaahi walajna ilaahay magaciisa ayaan ku gelaynaa wa bismi illaahi kharajna magaciisaan uga baxaynaa wa cala allahi ilaahay dushiisa oo rabbigeena ayaan tawakalnaa tala saaranaynaa sidaa dheh ilaahay magaciisa xuska baraka iyo wanaagaa ku jire markaad bismi illaahi gurigaaga ku gasho shaydaanku bannaankuu ku haraaboo dhahay nebiga shaydaan kaloo kula socdaa jira oo mtaqaanaa jasadkaaga ku jira bar alla markuu kaa kula soo gala cuntada marka laguu soo dhigo bismillahi haddaad dhaadaanteena bannaanku u soo baxaa raashin ma laha waa seexatay ehelkaaga ayaad rabtaa bismillaahi ayaad dhahday bannaankuu soo baxaa naagna maluu leeya raashinna malaha gurina ma laha bannaankuu fadhiya habeenkii oo dhan adoo foorinayaa soo gashay adoo qaylinayaa soo gashay cashadii aaway adoo dhahayo buryamayaa soo gashay waa kula soo gela sidii baad ku cuntay waa kula cuna ehelkaaga ayaad u tagtay bismillaahi ma dhihin farxad iyo rayreer buu ku jiraa guri iyo naag iyo raashinba waa heloog leeyahay maca daalika waa dhibaato badan shaydaanka in la buriyo ayaa fiican uma layusallim cala ahlihi ka gadaal ehelkiisa ha salaama sida ilaah tilmaamay waidaa daqaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan طayiba ducaau dihaabi ila almasjidi marka masaajidka la aadaya allahuma ajcal fii qalbii nuuran ilaahu qalbigayga nuur yeel wa fii lisaanii nuuran carabkayga nuur yeel wa fii samcii nuuran dhegahayga nuur yeel wa fii basarii nuuran indhahayga nuur yeel wa min fawqii nuuran korkayga nuur yeel wa min taxtii nuuran hoostayda nuur yeel wa can yamiinii nuuran bidigtayda nuur wa can shimaalii nuuran bidixdayda nuur wa min amaamii nuuran hortayda nuur wa min khalfii nuuran gadaashayda nuur wajcal fii nafsii nuuran nafteyda dhexdeeda nuur allow yeel wacdim lii nuuran ilaahu nuurka ii weynay wacadim lii nuuran adigana nuurka ilaahayow ii weynay wajcal lii ii yeel nuuran nuur ii yeel wajcalnii nuuran wajcal lii nuuran nuur alli ii yeel ii sugnaaday wajcalnii nuuran ilaahayow nuur ii yeel allahuma acطinii nuuran ilaahayow nuur isii wajcal fii casabii nuuran ilaahayow casabadaydii xididadeeda nuur yeel wa fii laxmii nuuran hilibkayga nuur yeel wa fii dambii nuuran dhiigayga nuur wa fii shacrii nuuran timihayga nuur wa fii basharii basharkayga waa jasadkaygii nuuran allahuma ajcal lii nuuran fii qabri ilaahayow qabrigayga dhexdiisa nuur ii yeel wa nuuran fii cidaamii lafahayga dhexdooda wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuuran ilaahayow nuurka ii kordhi oo ii siyaadi wahablii nuuran calaa nuurin ii hibay nuur korkiisa ahaaday nuurun calaa nuur yahdi allahu linuurihi man yashaa ilaahay nuur korkiisa ahaaday ayaa u sugnaaday qofkuu doono ayuu ku hanuuniyaa allahu nuuru samaawaati waalard ilaahay nuurka samaawaadkii arlada asagaa iskale ama waa midka nuuriya samaawaadkii arlada sidaa darteed ilaahay qof allaala qofku u doono ayuu nuurkaa u yeelaa nuurkaas ayuu ilaahay u sameeyaa awaman kaana maytan qof mayd ahaan jiray buu dhahay ilaahay oo fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi fi nnaas nuur aan u samaynay dadka markaa ku dhex maraya kaman maalahu fi dulumaati mid mugdiyaale iyo jahli iyo shirki iyo macaasi iyo salaam la'aan iyo soon la'aan ku dhex jira fa isku mid baabuu dhahay ilaa subxaana wa tacaala nuurkaa laguu tilmaamaya nalka iftiimaya loolama jeede waa nuurkii iimaanka waa nuurkii hidaayada waa nuurkii xaqa waa nuurkii cilmiga waa nuurkii diinta taasaa markaa loola jeedaa sidaa darteed ayuu ilaahay nuur u samaynaa qofka diinka allah isku nuuriya maalinta aakhiro dad fara badan ayaa mugdi ku jiro iftiinka kademe markaasay dhahayaan rabbanaa atamim lanaa nuurana ilaahu nuurkeenna noo taamil hanaga demini ducaau dukhuuli lmasjidi
masaajidka markaa lugta sii gelinaysa waxaad dhihi lahayd waayo lugta midigta ku hormari, acuudu billaah. musqulaha marka la gelaayo waa soo tilmaanay lugta bidixda ayaa lagu hormariyaa, marka laga soo baxayo lugta midigtaa lasoo hormariyaa. masaajidka marka la gelaayo lugta midigtaa hormari, markaad ka soo baxaysana lugta bidixdaa soo hormarinaysa. acuudu billahi alcadiimi leh wabiwajhihi alkariimi wasulطaanihi alqadiimi min ashayطaani arajiim. acuudu billahi, ilaahay ayaan ka magan galay allihii alcadiimi ee weynaa, wabiwajhihi alkariimi, wejigiisa kariimkaee sharafta badan ayaan magan galay, wasulطaanihi alqadiim, awooddiisii sarraysay qadiimkahe ee ilaahay ka magan galay min ashayطaani arajiim, shayطaanka rajiimkee la rajmiyey oo la fogeeyey oo naxariista laga dhaqaajiyey, kaasaan ilaahay ka magan galay. waxaad kaloo dhahaysaa bismi illaahi wاsalaatu wassalaam calىa rasuuli illaahi, allahuma aftax lii abwaaba raxmatika. bismi illaahi, ilaahay magaciisan beydka alla ku gelayaa, wاsalaatu naxariis iyo wاsalaamu nabadgelyo calىa rasuuli illaahi, rasuulkii ilaahay korkiisay ahaatay ama allah yeeloo duca uga dhig. allahuma aftax, allaahuma ilaahayow iftax lii ii fur abwaaba raxmatika, masaajidka raxmad ayaa laga helaa, albaabaha naxariista ilaahayow ii fur. ducaau alkhuruuji min almasjidi, masaajidka marka laga soo baxayo wixii lagu ducaysan lahaa ayaan ka gelaynaa. haddana masaajidkaad rabtaa inaad ka soo baxda beydkii ilaahayaad ku jirtay, naxariista maantoo dhan korkaaga ku daadanaysay, malaa'igta ayaa kuu ducaynaysay, shaydaanka ayaa ciilhay bannaankuu kugu sugayaa, wixii aad dhihi laheedaa la rabaa. haddana ducaau listiftaaxi, istiftaaxii iyo furfurashadii salaada ducadeedii waaye. allaahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya, allaahuma ilaahayow baacid dhaqaaji baynii ani iyo wa bayna khataayaaya gafafkayga, kamaa baacadta saad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi waalmaqribi, qoraxda meeshay ka soo baxday meeshay u dhacda say u kala fog yihiin oo kale ani iyo dembigayga noo kala fogay. allaahumma ilaahayow naqinii nadiifi min qataayaaya, dafafkaygii dembiyaalkayga, kamaa yunaqa thawbu, sida marada looga nadiifiyo alabyadu ee cad min addanasi, wasaqda. marada cad sida wasaqda looga nadiifiyo oo kale, marada cad waxay uga gedisan tahay marada guduudan ama mida madowtan cad ma qarsan karta wasaqda. hadday gaarta isla markii in la dhaqo meehee qofka ma kula bixi kara bannaanka. sidaa darteed dembi ii aruura ilaahayow ma rabee, isla markii sida dembiga marada wasaqda cad looga nadiifiyo oo kale iiga nadiifi. allaahumma ilaahayow aqsilnii min khataayaaya, gafafkayga waxaad iiga dhaqdaa bitalaji baraf, waalmaa'i biyo iyo walbaradi biyo qabow. dembiga waxaa laga dhigaa wax kulayl adag markaa leh, xaraaradiisu ay adag tahay, waxaa laysugu darayaa baraf iyo biyo caadiya iyo biyo qabow in markaa lagu dhaqo. waxaad kaloo dhihi kartaa salaada markaad furfuranayso, subxaanaka allaahuma wabixamdika, subxaanaka ilaahayow nasahnaashaa kuu sugnaatay, allaahumma ilaahayow wabixamdika, watabaaraka ismuka, magacaagaa kayrkiisa batay, watacaala waxaa kor ahaaday jadduka ammaantaada iyo sharaftaada, walaa ilaaha hayruka, ilaah hayrkaa ah oo adi kaa soo harayna ma jiro. waxaad kaloo dhahaysaa markaad salaada u furfuranaysa, wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalardi, wajahtu waxaan u jiheeyey wejhiya wejigayga liladii macbuudkii fatara asamaawaat, samaawaadka abuuray iyo waalarda arlada, xaniifan wamaa ana min almushrikiin. xaniifka waa qofka adyaan iyo diin kasta ka soo iisho islaamka u soo iisha, kaasaa markaa loola jeedaa mid xaniifa anigoo ah oo baatil iyo xumaan iyo shirki ka soo leexday. wamaa ana anigana ma ihi min almushrikiina, mid mushrikiinta ka mida. ina salaati salaadayda, wa nusukii gowracayga iyo wa maxyaaya noloshayda, wa mamaatii geeridayda, lilaahi ilaahay ayay u ahaatay, rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigeeda, laa shariika lahu wax la qaybsado oo shirki kula leh ma laha. wabidaalika arrintaa shirki la'aanta ayaa umirtu lay amray, wa ana aniguna min almuslimiina, muslimiintan ka mid ahay. allahuma ilaahayow anta almeliku, alla meliga oo boqora ayaa tahay, laa ilaaha ilaa anta
adi ma ahee alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jira anta rabbii rabbigay ayaa tahay wa ana cabduka aniga addoonkaagii ayaan ahay dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiyey wactaraftu waxaan kuu ictiraafay bidembii dembigayga ee fakfir lii ii dhaaf dunuubii dembiyaalkayga jamiican dembigayga oo dhan ii dhaaf innahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta waayo axad dembi dhaafoon adi ahayn ma jira wahdinii ilaahayow igu hanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda mida ugu fiican laa yahdii liaxsanihaa wanaaggeeda qofkuma hanuuniya ilaa anta adi maahani wasrif ilaahayow iil cannii xaggayga sayi'aha nafteeda xumaanteeda waayo laa yasrifu cannii xaggayga kama dadfi kara sayi'ahaa xumaanteeda ilaa anta adi maahani labayka wasacdayka ku ajiibay ilaahayow labayka waa ku ajiibay wasacdayka waa ijaabo ka dambaysaan ku ajiibay waalkhayru kulluhu biyadayka khayrka oo dhan gacmahaaga ayuu ahaaday waasharu laysa ilayka shartu xaggaaga ma ahaanin ana bika ani adigaan kuu suganahay wa ilayka xaggaagaan u soo noqona tabaarakta wa tacaalayta khayrkaagaa batoo waad kor noqotay astakfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka xaggaaga ayaanana markaa u tooba keenayaa waxaad kaloo dhahaysaa allaahuma rabba jibraa'iil ilaahayo oo jibriil rabbigiisa ahaw iyo wa miikaa'iila wa israafiila jibriil iyo miikaa'iil iyo israafiil waa malaa'igta saddex ka mida faatira asamaawaati waalardi samaawaadkii arlada allaha abuurayow caalima alghaybi haybka allaha og iyo washahaadati waxyaabaha xaadirka ahow anta taxkumu mid xukminaya ayaa tahay bayna cibaadika addoommadaada baynkooda fiimaa kaanuu wixii ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna kuwa markaa isu khilaafay ahdinii ilaahayow iyo hanuuni lima اkhtulifa fiihi wixii laysku khilaafo oo min alxaqi xaqa ah biidnika adi idinkaaga ilaahayow iigaga hanuuni innaka adiga tahdii waxaad ku hanuunisaa man tashaau qofkii aad doonto ilaa siraatin mustaqiim jid mustaqiima oo toosan wuxuu kaloo qofku leeyahay allahu akbar kabiira allahu akbaru kabiira allahu akbaru kabiira 3 mar walxamdu lilaahi kafiira ilaahay ayaa mahad iskale mahad badan walxamdu lilaahi kafiira walxamdu lilaahi kafiira 3 mar wasubxaana allahi bukratan waasiila oo 3 mar ah ilaahay ayaa nasahan wasubxaana allahi ilaahay ayaa hufan oo nasahan bukratan waasiila subax iyo galabba acuudu billaahi ilaahay waxaan ka magan galay min ashayطaani shaydaanka xaggiisa min nafkihi afuufidiisa wa nafsihi min nafkihi waswaasintiisa wa nafsihi afuufitaankiisii wa hamsihi hamsigiisa iyo xumaantiisii waswaasintiisa oo dhan ilaahay ayaan ka magan galay allaahumma wuxuu kaloo dhahayaa qofka ilaahayow laka alxamdu mahad adiga iskale anta nuuru asamaawaati waalardi allaha samaawaadkii arlada nuuriye ayaa tahay ama nuurkoodaa waman fiihinna iyo waxa dhexdooda ahaaday walaka alxamdu adigay mahad kuu sugnaatay anta qayimu asamaawaati waalardi qayimu asamaawaati ayaa tahay midka samaawaadka u qumay iyo arlada oo maamula oo qayimkooda ah iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta rabu asamaawaati waalardi ayaa tahay iyo waman fiihinna walaka alxamdu laka waxaa kuu sugnaaday mulku asamaawaati waalardi iyo waman fiihinna walaka alxamdu mahad adigay kuu sugnaatay anta meliku asamaawaati waalardi ayaa tahay walaka alxamdu mahad adig kuu sugnaatay anta alxaqu alla xaqa ayaa tahay wa wacduka alxaqu yaboohaagu waa xaq waqawluka alxaqu waliqaa'uka alxaqu
liqahaaga iyo la kulankaaga waa dhab, waljannatu xaqu wannaaru xaqu, jannada iyo naartu waa xaq, wannabiyuuna xaqun, nebiyaashu waa xaq, wa muxammadun sala allahu calayhi wasalam xaqun, nebigana waa xaq, wasaacatu xaqu, saacaddu waa xaq. allaahuma laka aslamtu, ilaahayow adigaan isu kaa dhiibay, wa calayka dushaada ayaan tawakaltu tala saartay, wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey, wa ilayka anabtu adaan kuu soo noqday, wa bika khaasamtu ay wa bika wa bixujatika xujadaada ayaan khaasamtu, ilaahayow kula doodayaa gaalada, wa ilayka xaakamtu xaggaagaan u soo xukuntamay, fakfir lii ii dhaafaa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah, wamaa akhartu waxaan dibdhigsaday, wamaa asrartu iyo wamaa aclantu waxaan sirayaystay iyo waxaan muujistayba, anta almuqadimu wa anta almu'akhiru, alla dibdhiga iyo mid hormariya ayaa tahay, laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee alla kale ma jira, anta ilaahii adiga ilaahaygii ayaa tahay, oo laa ilaaha ilaa anta adi ma ahee ilaah kale uusan jirin. ducaau rukuuci, rukuucdii ducadeedii waaye. marka aad rukuucsan tahay waxaad dhahaysaa subxaana rabbiya alcadiim 3 maraatin, 3 mar ayaad ku soo celcelinaysaa subxaana rabbiya alcadiimi. waa sida ugu saxiixsan in intaa lagu ekeeyo subxaana rabbiya alcadiimi oo wabixamdihi aan lagu darin. riwaayadaha gobol ayaa ku daray wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi, rabbiga cadiimka ah ama rabbiya alcadiimi, rabbigayga cadiimka ee weyn ayaa nasahan. rukuucda waxaad kaloo ku dhihi kartaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii, subxaanaka allaahuma rabbana ilaahayow adigaa nasahan, wabixamdika oo hadna adigay kuu sugnaatee allaahuma kfir lii. waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa subuux quduusu rabu lmalaa'ikati waaruuxi, taana waad dhihi kartaa ilaahay ayaa nasahan oo tahiran oo rabu lmalaa'ikati waaruuxi, malaa'igta rabbigooda iyo ruuxa rabbigiisa ah. ruux waa malakuljibriile. waxaad kaloo rukuucda ku dhihi kartaa allaahuma laka aslam, allaahuma laka rakactu, ilaahayow adigaan kuu rukuucay, wa bika aamantu adigaan ku rumeeyey, walaka aslamtu adigaan kuu islaamay, khashaca laka samci adiga ayaa dhegahayga ay kuu khushuuceen, iyo wa basarii aragayga, wa mukhii dhuuxayga, iyo wa cadmii lafahayga, iyo wa casarii xididadayda, iyo wamastaqalla bihi qadamii wixii lugahayga cusleeya oo dhan, waa jasadkiisa oo idil. waxaad kaloo rukuucda ku dhihi kartaa subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati, waxaa nasahan allaha jabaruudka u saaxiibka ah. diljabaruuti, jabaruudka waa allaha cadamada iyo weynaanta u saaxiibka ah. waalmalakuuti, hanashada iyo maamulka midka u saaxiibka ah. iyo waalkibriyaa'i, isla weynida iyo kibirka ilaahay ayaa iskale. casiizu ljabbaaru lmutakabir, waa alla isla weyn subxaana wa tacaala. iyo waalcadamati, cadamada iyo weynaanta. ducaau rafci min alrukuuci, marka rukuucda laga soo rafacayo ama laga soo kor noqonayo wixii lagu ducaysan lahaa. samica allahu liman xamidahu, ilaahay waa maqlaa dheh qofkii mahdiya. rabbanaa walaka alxamdu, rabbigeeyow adigay mahad kuu sugnaatay. xamdan kafiiran tayiban mubaarakan fiihi, mahad badan oo tiib leh oo barako ku dhex jirta. waxaad intaa ku dari kartaa mil asamaawaati wa mil alardi wamaa baynahumaa ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد. sidaana waad dhahaysaa mil'a asamaawaati ayaad rabbiyow mahad leedahay, samaawaadka mulkin maa inta buuxisa, iyo wa mil'a alardi iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa, iyo wa mil'a maa shi'ta intii aad doonto mugeed oo min shayin bacdu markaa kadib ka gadaal ah oo shay ah. ahla asanaa'i, sanaha iyo ammaanta ehelkeeda ayaa tahay, iyo walmajdi sharafta. axaqu maa qaala alcabdu, waxaa u xaq badan wuxuu addoonku yidhi. wa kullunaa dhammaantaynba laka cabdun, adigaan addoomma kuu nahay. ileen axad ma jira buu dhahay ilaahay, ilaa aati araxmaani cabada, ilaahay ayuu u imaana asagoo addoon ah. allaahuma laa maanica,
ilaahayo wax mancin kara oo celin kara oo diidi kara ma jiro lima acdayta waxaad bixiso wixii alla ku siiyo qofka hor istaagi karaa male walaa muctiya axad siin kara malaha limaa manacta waxaad manciso haddii alla wax kaa manciyo uusan kugu talagelin ummadoo dhan haddii isu timaado ma kuu taagi karaan walaa yanfacu ma anfacaya daljaddi mid dheef iyo hodantinimo u saaxiib ah dheeftiisa hodantinimadiisa waxay anfacaysa malaha minka aljaddu dheefta adigay kuu sugnaatay iyo sharafta iyo maamulka intaa waa marka rukuucda laga soo kor noqdo waa ictidaalka waa samicallah ducaau sujuudi sujuudii ducadeedii waaye subxaana rabbiya alaclaa waa 3 maraatin 3 mar allaha sareeya rabbigay ah ee sareeya ayaa nasahan waxaad kaloo dhahaysaa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allaahuma kfir lii ilaahayow adigaa nasahan rabbigeeyow mahadna adaa iskale ilaahow ii dembi dhaaf subuuxu quduusu rabbulmalaa'ikati waaruuxi taana waad dhihi kartaa waxaa tahiran oo nadiif ah oo hufan malaa'igta iyo malakuljibriil rabbigooda malakuljibriil malaa'igtuu ka mid yahay laakiin sharafta uu leeyahay darteed ayaa malaa'igtana loogu sheegay asagana qaas ayaa markaa loo sheegay sidaa darteed ayaa meelo badan lagu ammaanaa jibriil inna markii ilaahay uu tilmaamayey tanazzalu lmalaa'ikatu malaa'igtii ayaa soo degta jibriil waa ku jiraa waaruuxu si qaas ahna ilaah waa u sheegay allaahuma laka waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa ilaahayow adiga ayaan sajadtu kuu sujuuday wa bika aamantu adaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan isu kaa dhiibay sajada wajhiya wejigayga wuxuu u sujuuday liladii macbuudkii khalaqahu uumay wa sawarahu suuradeeyey wa shaqa jeexay samcahu iyo wa basarahu maqalkiisa iyo aragiisa tabaaraka allaahu ilaahay ayaa khayrkiisa batoo axsanu alkhaaliqiina inta wax doonta midka u fiican ah waxaad kaloo dhihi kartaa sujuudda dhexdeeda subxaana diljabaruuti waalmalakuuti waalkibriyaa'i waalcadamati waxaa nasahan allaha jabaruudka u saaxiibka ah malakuutka iyo hanashada kibriyaha iyo isla weynida iyo waalcadamati weynaanta waxaad kaloo sujuudda ku dhihi kartaa allaahuma kfir lii denbii kulla ilaahayow dembigayga dhammaantiis ii dhaaf didqahu wajillahu kiisa didqiga ah waa ka jilcan iyo wajillahu kiisa xoogan wa awalahu kiisa hore iyo wa aakhirahu kiisa dambe wa calaaniyatahu iyo